amaya lamaanihii ka soo kala jeeday waddanka Maraykanka iyo Soomaaliya ee Garowe ku aqalgalay xageebay ku dambeeyeen iyo gabadhii reer Garowe ee tiri ragga Soomaalidu ma aha romansi sidaa darteed si aan u dhadhamiyo macaanka romansiga guntiisa u gaadho waxaan guursanayaa nin u dhashay waddanka Maraykanka oo caddaan ah xagee ayay ku dambaysay xageese ayuu saldhigtay jacaylkii iyo guurkii ay yegleeleen lamaanihii kale ahaa Yaasiin Braden oo asal ahaan ka soo jeeda waddanka Maraykanka balse Muslim ah iyo sidoo kale Naciima oo ka soo jeeda waddanka Soomaaliya xarunta maamul goboleedka Puntland ee Garowe jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo sida aynu wada ognahay Yaasiin Braden iyo Naciima waxa aroos wan ay ku dhigteen xarunta maamul goboleedka Puntland ee Garowe iyadoo arooskaasi saameyn ballaaran uu yeeshay guud ahaan geyga Soomaalidu ay degtana laga ogaaday arooskaas balse guurka kadib lamaanahan iscalmaday ee kala sijiyada ah fahankoodii ayaa aad u adkaaday waayo ma aha dad isku dhaqan ah iyadoo wararka qaarna sheegayaan in muranku ka yimi masay dhanka Naciima ah halka wararka qaarna sheegayaan ninkan odayga ah ee ka soo jeeda waddanka Maraykanka markii uu si fudud ku hantay inantan yar ee quruxda badan leh ee reer Garowe inuu mooday hablaha Soomaalidu inay yihiin timir xabaal taala kabacdina uu la soo baxay shaxaarinimo culus waana sababtay gabadhu uga hinaastay isjiid dheer kadib waa la kala tegey aqalkii romansiga iyo jacaylka lagu dhisay ee guud ahaan geyga Soomaalidu degta laga ogaaday dabaylaha ayaa qaaday markii la kala tegay kadib ninkii Maraykanka ahaa ee magaciisa la odhan jiray Yaasiin Braden umuu joojin gabadhiisii xaaskiisii ay kala tageen Naciima balse isla markiiba wuxuu uu sameeyey gabadh kale oo reer Garowe ah ayuu u gogol fadhiistay gabadha magaceeda waxaa la yidhaahdaa Roodo gabadha kale ayaa uu guursaday kadib Yaasiin Braden iyo Roodo markii ay isguursadeen waxay tageen waddanka Kenya si uu u kaxeeyo oo uu geeyo waddanka Maraykanka waxaanu bilaabay dacwad dhoof balse muddo kadib waxa uu ogaaday gabadhiisii hore Naciima inay ilmo yar u dhashay isla markaaba weji kale iyo ididiile kale ayaa ninkii odayga ahaa gashay waxaanu daaqadda ka saaray si arxandarro ah gabadhii dambe ee Roodo la odhan jiray waxaanu ku yidhi hee kuma jecliye inagu kala kaxee meesha xaaskaygii Naciimo ayaa ku noqonayaa warqadaadina wataa dhoofna ha u sugin ee ka sii daa markaa kadib waxa uu bilaabay inuu Garowe u safro oo uu Garowe qabto gabadhii iyada ahayd ee Roodo la odhan jirayna weji kale iyo hee adduunyo kale ayay gashay meel mugdiyaana lagaga tegey salaamaad kulli jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo markaa kadib ninkii waddanka Maraykanka u dhashay ee magaciisa la odhan jiray Yaasiin Braden waxa uu ku soo noqday magaalada Garowe isagoo doonaya inuu xaaskiisa ku noqdo Naciima oo nolosha la wadaago si uu u hanto ilmihiisa yar haddaba su'aalaadka shacabka ay isweydiinayaan waxa ka mid ah ama reer Garowe bay isweydiinayaan ninka Yaasiin Braden la yiraahdo
ma jacayl uu jecel yahay naciima ayuu ugu soo noqday mise waxa uu doonaya sidii ilmihiisa uu ugu qaadan lahaa waddanka maraykanka isagoo naciimo sasabanaya si kastaba ha ahaatee ninkan yaasiin waxa uu daawaha saartay muddo yar laba hablood oo reer garowe ah isagoo marba mid laxan jacayl ah u shidaya sidoo kale hablaha soomaaliyeed oo markii hore aaminsanaa in ragga ajinabiga uu yahiin qaar yaqaanaa romansiga amaba jacaylka ayaa iminka aada moodaa inay ka soo ladnaanayaan aragtidii khaldanayd kadib markii ay arkeen ninka maraykanka ah ee daawaha saartay laba hablood muddo aada u yar sidoo kale dadka reer garowe waxaa indhahooda aada u hayaan ninka maraykanka ah iyo weliba dhaqdhaqaagiisa iyagoo weliba shaki weyn ka hayo in ninkani aanu gabadha u iman ee ilmaha uu doonaya inuu qaato waynu eegi doonaa filimkan uu jiraya ninkan magaciisa la yidhaahdo yaasiin bredin halka uu saldhigto sidoo kale inantii lagaga yimi waddanka kenya ee loo qalqaalinaya dhoofka ayaa dirida qaliintay oo aan la ogeyn xaalkeeda iyo nolosheeda iminka inuu waxay ku sugan tahayba guntii iyo gebagabadii waxaan hablaha soomaaliyeed kula talin lahaa inay iska daayaan dhaldhalaalka adduunka iyo nimanka cadcad ay bidhaansanayaan waayo nolol wanaagsan iyo mustaqbal kama dambeeyo waa iga talo intaasi barnaamijkii aan idin daadihinayay anigoo daakirstaale xaskare waa iga intaas intaynu barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi